سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داوداشا قيمها بدن وسلامنتين مركز سود دونو دافيد كجوجتا كسو دوادا برنامج كينا وراركا أخباراتك أفلامتا هندية دمان شركدها أنغو كسو قادن دون qodobada barnaamijka ku maqli doontaan daawadayaasha qiimaha badan waxaa ka mid ah waxa box office-ka ku dagaalami doon Ali Abad Barabas waxayna kala wataan filimada Ganguba iyo Redisham xanta ugu weyn maanta atrishada Rashmika Madanna ayaa la jelay Ram Jaran filimkiisa xigay oo director ka yahay Shankar filimka aan qeentuna ayaa doobis lagu bilaabi doonaa waxaan hogaamiyalka filimkan Amitabh Bachchan Siddharth Malhotra Akshay Khanna qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijkeena ku maqli doontaan daawadayaasha qiimaha badan ku soo dhawaada channelkeena fadlan hadday tahay markii kugu horreysay aad soo booqato channelkeena fadlan subscribe noo saar like saar muuqaalkan waayo dad badan ay gaarayaan aragtadaana comment noogu reeb daawadayaasha qiimaha badan aan ku bilaawno qodobkeena koowaad xanta ugu weyn maanta atrishada Rashmika Madanna ayaa la jelay Ram Jaran filimkiisa xigay oo director ka yahay Shankar dhanka shaqada markaan fiirin Ram Jaran wuxuu doobis ku wadaa filimka weyn ee Triple R oo director ka yahay SS Rajamouli sidoo kale filimkan Triple R waxaa hogaamiyaasha ka mid ah Junior NTR Ali Abad Ajay Devgan aktarkan Ram Jaran wuxuu kaloo door muhiim ah ku leeyahay filimka Acharya oo aabihiis Megastar Chiranjeevi hogaamiyaha ka yahay dhanka kale atrishada Rashmika Madanna waxay soo wadaa filimka Mission Majnun sidoo kale waxaa filimkan hogaamiyaha ka Siddharth Malhotra waxay kaloo soo wadaa filimka weyn ee Pushpa oo Allu Arjun hogaamiyaha ka yahay maalmo ka hor ayuu Ram Jaran ku dhawaaqay mashruuciisa xiga oo director ka yahay ninka lagu magacaabo Shankar sidoo kale directorkan waa nin laga dambeeyay dhankaasi koonfur Hindiya filimada uu agaasimay waxaa kamid ah filimka weyn 2.0 oo ku xarikay Rajnikanti Amjad Sole xanta ugu weyn ee maanta ay daawacayaan wargeysyada ka soo baxa koonfurta waxay tahay in Ram Jaran mashruuciisa soo socday aan wali magac loo bixinin ay atrisho koowaad ka noqon doonto Rashmika Madanna waxaan sugnaa waa in si official ah loogu dhawaaqo in labadan isla jili doonaan mashruucan soo socdo aan halkaas ugu gudubno qodobkan waxaa box office-ka ku dagaalami doona Ali Abad iyo Barabas waxayna kala wataan filimada Ganguba iyo Redisham ilo ku dhaw kooxda iskale filimka Ganguba ayaa shaaca ka qaad in filimkan Ali Abad lagu wado in la daawado bisha July 3 isla sanadkan 2021 isla taariikhdan waxa hore u doortay superstar Barabas oo wata filimka Redisham shabakada ugu afka dheer ee Bollywood Hangama ayaa daawacday warkan maanta xogta sidoo kale intaa waxay ku dartay in kooxda filimkan ay ku fikirayaan in la daawado filimkan Ganguba xagaaga 2021 ayadoo la qiyaasay in la daawado inta u dhaxayso taariikhda April 3 ilaa May 21 isla sanadkan 2021 si kastaba ha noqotee Sanjay Lala Ghazali wuxuu dareemay in filimkan uusan diyaar noqon doonin waqtigaas sida darteed wuxuu go'aansaday inuu keeno bisha July 2021 taasoo ka dhigan in filimkan ay isku dhici doonaan filimka weyn Redisham Ranveer Singh filimkiisa Circus oo director ka yahay Rohit Shetty maxaa ka cusub filimkan sida laga soo xigtay ila wareedyo ku dhow kooxda iskale filimkan Circus ayaa lagu soo waramayaa in la daawan doono dabiiqada sanadkan filimkan ayaa la daawan doona taariikhda markay tahay 31 December 2021 filimkan waxaa hogaamiye ka Ranveer Singh sidoo kale waxaa kula jiraan Pooja Hegde Jackal Fernandez iyo Farun Sharma oo door muhiim ah ku leh filimka aan qeentun ayaa doobis lagu bilaabi doonaa waxaan hogaamiyalka filimkan Amitabh Bachchan Siddharth Malhotra Akshay Khanna filimkan aan qaybtiisa koowaad oo ay wada jileen Amitabh Bachchan Paresh Rawal iyo Akshay Kumar filimkan qaybtiisa koowaad wuxuu ku saabsanaa saddex nin oo indhoolayaal ah oo si guul leh u dhacay bangi muddo 20 sano kadib director Abhinay wuxuu diyaariyay sheekada filimka aan qeentun balse markaan jilayaal kale ayuu ku soo daray Amitabh Bachchan sidiisa ayuu u soo laabtay maadaama uu dubdhaxaad u yahay sheekada filimkan waxaa kaloo lagu soo daray filimkan Siddharth Malhotra inkastoo Siddharth iyo Amitabh aysan weligood wada shaqeynin filimkan ay u noqon doona filimkii ugu horeeyay isla sameeyaan waana filimkan aan qeentun filimkan jadwalkiisa koowaad waxaa doobis lagu bilaabi doonaa dabiiqada bisha May ee isla sanadkan 2021 Nawasuddin Siddiq ayaa beeniyay inuu qayb ka yahay xidiga reer Tamil Vijay filimkiisa xigay aan wali magac loo bixinin kaliya hadda waxaa lagu yaraa Vijay filimkiisa 65 shabakadaha waxay daawaceen in Nawasuddin Siddiq uu door adag ku leeyahay filimka xiga ee Vijay laakiin aktarkan ayaa gabi ahaanba beeniyay warkaas wuxuuna sheegay aktarkan inuusan qayb ka ahayn Vijay mashruuciisa xiga goormee la duubaa jadwalka u dambeeya filimka Lal Singh Jadala xog oo muhiim ah oo la helay Lal Singh Jadala ayaa kamid ah aflaanta sida weyn loo sugay labadii sano u dambeysay balse caqabado badan awgeed dib u dhac ayaa ku imaaday mashruucan oo ah hogaamiyaal ay ka yihiin Amir Khan iyo Kareena Kapoor Khan waa filimkii saddexaad oo isla sameynayaan xidigahan kadib Three Idiots iyo Tlash oo labadaba guuleysteen inkastoo Three Idiots guul weyn gaaray haddaba Lal Singh Jadala ayaa la filayaa inuu noqdo mashruucooda ugu xiisaha badnaa
filimkan oo meelo kala duwan lagu duubay Amir ayaa ku fikray in muuqaalka u dambeeyo ah jadwalka dhamaadka filimkan inuu la sugo bilaha May ama June wuxuuna sheegay ayaa la yiri in xilli wanaagsan uu yahay kuna haboon in la duubo muuqaalka ugu dambeeya filimkan. Amir atooraha filimka kaliya ma ahan ee sidoo kale waa qarash gareeyaha iyo hal abuuraha mashruuca wuxuu ku leeyahay aragtiyo kala duwan. Aragtidiisa isaga qaba oo ah muuqaalka dhamaadka ee dagaalka in xilligaas la duubo dabcan mashruucan qeybaha dambe isla sanadkan ayaa la daawan doona filimkan waxayna u badan tahay December in la daawado 2021. waxaa halkaas inagu dhan barnaamijkeeni fadlan hadday tahay markii kugu horeysay aad soo booqato janaalkeena fadlan subscribe noo saar muuqaalkan like saar waxay ka dhigan tahay inaad muuqaalkan faafinayso maadaama aad like saartay aragtidaadana comment nagu reeb muuqaalkan share. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.